kooxda al-shabaab ayaa galabta dad shacaba waxa ay ku laystay duleedka degmada balcad ee shabeellada dhexe dadka la dilay waxa ku jira xubno caan ah iyo ganacsato sidoo kale waxa jira dad nolosha lagu leeyahay khasaaraha dhimashadu waa imisa dadkaas maxay ahaayeen warbixintan ayaan rabaa inaan kugu wadaago wararkii ugu dambeeyay dhacdo anfariir iyo sidoo kale hadalhayn badan dhalisay oo ka taagan duleedka degmada balcad ee shabeellada dhexe soo dhawaada saaxiibayaal idinkuna jimco wanaagsan meel walba oo caalamka ka joogtaan maanta waxa jira gaari ka soo ambabaxay magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellada Dhexe kuna soo socday degmada Balcad sida la sheegay gaarigaasi wuxuu ahaa nooca Soomaalidu ay u taqaano Leela Calawi waxaana uu ku safrayay wadada laakiin markii uu marayay deegaan u dhaxeeya Gololey iyo degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe waxa wadada u galay xubno ka tirsan kooxda argagixisada ah ee al-shabaab gaariga waxa saarnaa ku dhawaad 10 qof oo dhammaantood ahaa dad shacab ah mana ku jirin xubno ka tirsan dawladda ama cid u shaqeysa dawlad goboleedka Hirshabeelle sidoo kale kama mid ahayn askarta dawladda socdaalkaasi gaariga saaran laakiin waxay ahaayeen dhammaantood dad shacab ah oo isugu jira ganacsato iyo dad caadi ah oo ka soo ambabaxay magaalada Jowhar ee Shabeellada Dhexe waxa la sheegay in markii ay marayeen halkaasi ama duleedka Balcad oo una dhaxaysa Gololey iyo Balcad in maleeshiyadu ay rasaas hal mar ooda kaga qaadeen dhammaan dadkii shacabka ahaa ee gaariga saarnaa saddex qof ayaa geeriyootay afar kalena waa ay dhaawacantay sidoo kale waxa jira dad nolosha lagu leeyahay ilaa iminka oo kamid ahaa dadkii gaariga saarnaa oo aan la ogeyn in maleeshiyadu ay wadatay iyo inay baxsadeen oo ay goobta ka baxsadeen oo iyagu ay naftooda la baxsadeen dadka lagu dilay weerarkaasi waxa kamid ah nin ganacsada oo lagu magacaabo Maxamed oo kamid ah ganacsatada caanka ah ee gobolka Shabeellada Dhexe waxaana la sheegay in meedkiisa goor dhaweed la geeyay magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellada Dhexe halkaas oo la filayo in lagu aaso waxa jira warar kale oo soo baxay oo sheegaya in ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka ee dawlad goboleedka Hirshabeelle iyo kuwa dawladda federaalku inay ku baxeen goobta ay dhacdadu ka dhacda hase yeeshee maleeshiyada ayaa gebi ahaanba dab qabadsiisay gaarigii waxaana la sheegay inuu halkaasi ku basbeelay kadib markii dadkii saarnaa waxna dileen waxna dhaawaceen sidoo kalena dad kalena nolol iyo geeri aan midna lagu haynin wadada u dhaxaysa Balcad iyo Jowhar sanadihii la soo dhaafay waxa laga deerinayay ammaankeeda waxaana jira dhacdooyin kuwan lamida oo ka dhacay oo al-shabaabku dhowr qof oo isugu jira saraakiil ciidanka dawladda ka tirsan mas'uuliyiin dawlad goboleedka Hirshabeelle iyo dad kale oo shacab ah ayay halkaasi ku xasuuqeen 2 sano ka hor sidoo kale qarax ay halkaasi ka geysteen shabaabku waxay ku dileen 9 qof oo shacab ahaa halka tire intaasi ka badan ay ku dhaawacmeen kadib markii gaari caasi ah oo haleelay qarax ay maleeshiyadu ku aastay wadada oo ay doonayeen inay ku waxyeeleeyaan baabuurta ciidanka dawladdu ay leeyihiin ee wadadaasi isticmaala dawladda federaalka iyo dawlad goboleedka Hirshabeelle ayaa loogu baaqay dhowr jeer hore inay wax ka qabtaan ammaanka wadada xiriirisa Balcad iyo Jowhar gaar ahaan inta u dhaxaysa Gololey iyo Balcad oo ah meelaha ugu ammaanka daran oo mararka qaar ay ku soo dhuumaaleystaan xubno ka tirsan maleeshiyada kooxda al-shabaab kuwaas oo sidoo kalena dadka qaar kala dega baabuurta lacaga baada ay sidoo kale shabaabku ka qaataan baabuurta wadooyinkaasi isticmaala waxa la sheegay laakiin gaarigan Leela Calaawiga ee maanta ka soo ambabaxay magaalada Jowhar kuna soo socday degmada Balcad in shabaabku aysan joojin oo ay kaliya hal mar rasaas ooda uga qaadeen taas oo sababtay in dad badan oo shacab ay halkaasi ku dhamaadaan kuwa kalena ay ku dhaawacmaan waxa leenahay Ilaahay u naxariisto intii dhimatay inta dhaawacana Allah u boogadhayo kuwa dhintay waxa dishay gacanka xaq daran oo cadow Soomaaliyeed una taagan mar walba dhibaateynta iyo sidoo kale leynta shacabka Soomaaliyeed ee masaakiinta ah wanu tacsiinayna idinkuna u duceeyay in dadkaas shuhadada ay geeriyooday Ilaahay u naxariisto aad iyo aad ba u mahadsantiin saaxiibayaal